bisada iyo jiirka maxaa ka dhaxeeya is-aragu ma ka dhaxeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay yidhahdeen habeen walba bisadii 10 20 waa la na dhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la sulo soo ma taqaanaan jaras geela la sulo hal la qaado oo bisada qoorteeda la soo sulo buu yidhi si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dadna looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu yidhi soo saamaynta nabiga ku salliya dad muslimiintoo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acaza annaas inay noqdaan waan jecel lahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba geerka dambe u gashanaya markiiba war waxba geerka dambe ha gashane geerka hore gasho yaa u diyaar geerka hore inuu geliyo insha allah dhahada allah inaga farxiyo allah inaga farxiyo nin taajira ayaa masjidka soo galoo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayey xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaallo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu u dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtaha oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ile dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataaye maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu yidhi yaa allah الله يا مسلم تاجرك إلهي بو باهن يهي مسكينكنا إلهي بو باهن يهي مدحد إلهي بو باهن يهين دلن يرد إلهي بو باهن يهين شعوبت إلهي بو باهن تهي إلهي بني آدم كل لمحة عين كمان مرمي كرام وضيبا إنن كيسو كيري أبا إنتا أو سنان مصاريف كسينة يه بل ما أنت كن شلن أبا إيكين بكيري كن شلن dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya kun shilin isiiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtiiyo hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan kunkii shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa kun shilin ii keen hooyadii unbuu ku yari wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay amaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unba haddana ku tuura kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooyo kun shilin isiiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu uu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo kun shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo ho
markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u malaynaya bishii November bisheedii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay baad maqashay ma malayn ya 130 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baan sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ayag fadhiya diyaaradii way girirtay markaa quraankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri laa ilaaha illa allah markaasuu yiri igu celi way girirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan laa ilaaha illa allah markaasuu laa ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa masa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeen ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu yiri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyan ku jira maxaa marka wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaaman doonayaa buu yiri hadalkii hadana Saudi girirta diyaaradii markaas hadana lugtii qabsaday war isiida laa ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo laa ilaaha illa allah diyaaradii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu yiri dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiin ana saaxiib aan lahayn buu yiri marka iisoo duceeyay buu culamadan ay ugu sheekay iisoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت ما دبا إلهي كوا قال هذا حاجة أصور ده حاجة إلهي مساجد جمعه لبوحه وآل تكنايو أي من قروح بدن أو در آغا قروح بدن ستة أي صفقه ركوت كلي وكسوك عي علماء بuu yimiday waxbuu dhagta ugu sheegay sheekh imaamka makarfoon qaato wuxuu yiri ninkan walaalkeenina dul taagan waxa uu leeyahay jamaca muslimiintu awlaad ilaahay hay weydiyaan buu leeyahay u duceeyay buu wallo duceeyay ma sha Allah hadana jumciye kale soo kacay ducadii buu u sheegtay wallo duceeyay hadana jumciye saddeexaad buu soo kacay ducadii buu sheegtay wallo duceeyay min culimadii kamida fikray oo u yeeray soo fadhiisay buu wuxuu imisa dumar guursatay buu ka yiri markaas ma guursanba marka warama ninkaas saxba ducadiisaasi ma soconaysa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay malishag khilaaf sunnah
سنة إلهية وخلاف سيئة طريقة الله مرة يسحب ممرين مركا أصوك عليها يؤدي سقوره دي سوحة لمونيا من أفر دمر له ووليوب ما كنتحن لكن مركو يرمى بورسن دا أيا اللي يدور والنمبر باكا قلدنه ورد سوق بورسو ورد النمبر كاسك سو صح النمبر كإلهي بري طيب هذا الجمعين يكونوا سوق علي نكي حالات دي سوق غاية حواشة كقالبا أيها الورنقة فريس ورياض انتو إمام بماشي مفريسيين علماء دي ما كنتر ورمانيك يدعاء الدونية خير كبرنا يدعاء الدون كي محاد مفريسيين اللي قيلوا مركز سويد ورنا برباك غد لبوري نك مسكح ذو حكاية القضاء سيادكو قراتيوه دمو بقرسان بوري كوان مالين قيلة يو اسكبر جينا يا واكن جماعة ضدك زيارتان موقتها أيها نقل لي سفيعا بالنصر دوينو BBC دي الراديو كانوا يبختيون وين نجستين مركان نير ضميني وعدي يعني ده فدقونا كلا في عنه مسايد كأنه مريو نيرع ندبق عتا تاقويري نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي لا صدري واحد لقول إنه ما تمقشين بولي مركزان مصنوع كوي لا برجيني يبعدي ومن كان waa jaamiciyo waxba inii kordhina ka dhageysta hay noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yiri maad maqasheen bal loo sheeg fadhakir inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar هذا الكلام ورنا dadka waani baa nabiga laga yiri adu waaniyo un baa tahay ka diinta dadka qasab kaga dhigay ma tihin nabiga baa sida lagu yiri oo noo sheegteene qasab ha naga dhigine iska socda markaas kulligood yiraahdeen ikaas sheekhaygu waa nikaas shaydaan baa sheekhina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadi baa hoos u taal iimaankii baa daciifa talqisan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaala xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkii baa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dadna waan lugtayda dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso مثل يعني وحيكون هذا العقتن وحتكون بساتها شبك فاهم يسمى نمرين شبك قامت بدوين تكتورن هل كان لبا يصدح مالنتي أرقبن يسين لبا تنبر قبن مركز سوري كدبنا وحيل هذا إيه مدة أصدا أو شقة العقت ير الرسو دون ير بعد مركز نبي يبسن دون تا انجينير بعد موتير بيلاده هاي بدوين تدخل داعي دونتا هل كان مالنتي لباتن أد سوق قبنيسه بقول كلهم بعد سوق قبن لا لبا بقول حبدود مركز سكوري كدبنا مركز سيد هذا يمدة أصلا أو شقة مقالة ده هل كان سوق خضارته يهيلب كلجو إبيات ملك فرانيسا هل كاسد مركز كو إبنيسا دت كورن باكو برانايا نن عامد وده كان نقولنيسا وكلون كلجو يقانو هيبل كلون لبا لجورن مركز هيبل كلون كيبين جري مركز اللي كدبنا دور سنة صدا أو شقة هاي العقد أور بانك دق كدبنا لاش كان دايرة بدوين تقول دع عياد يبسنة سا فضاد أنا كو حاجة فضاد بني أنا جيبوتي فضاد كابد يبسنة سا بدأت كل دع عيسى
لأنه واحد سوق قبنا يسار دور كن حبضات بعد سوق قبنا يسار مالنتي يقولي بخ خيرات بدن وبدك كجرة مركز ولكدبنا قبل هذا ودن كوردن بعد كفورين يسار مركز برانش بيلا ما ركتاني أتكوي بسد كلونك ودن كردن بكلونك هذه قاسينا هي مركز ولكدبنا مدرسة أول شيء هذا نشان سنة اللي حسنا العقد أوري واحد يبسنا يسار مركز دم ورشدي سار الدين كسمين يسي مركز ولكدبنا ورشد على مركز وشغين سا الدون كادو كل درسا مركز ولكدبنا قصر وينو فيلايات دي سنة صفي عن بعض الساحن بيكيل هذين وعلى هذا مركز دي تمادين بدور ديك كعسين يقول وحول ما هردون بالين تاو مرابود سوني هردين ما يمكن waxaan ka wadaa macna isku aragti manihin nolosha daahirka maaha nolosha muslimku ibn taymiyyah rahimahullah ayaa yiri inna lillahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yiri jannada adduunyada waa maxay waa xayaat al-iimaan wal a'maal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay وقدر كأمنسن أنا كو جولة بري سعنا بعنين وتجني الصومالي ولا يرنيك والصومالي وأنا المال فديو خبر عباية وضنا بقالة مركز أنا وتجني والسلام عليكم مركز أنا عليكم السلام حاجات كتير ما دنيش ما مسكين بناش السلام عليكم تنلي ده بنقولي ما يضل كيان كيمنو قارة أفريقيا كيمنو إني كان نصاب وقنو المسكيت كان نور على دونه إنه مسكيت كا دين تايا اللي بريني كميل دين بما تقاننا سوك إلهي لما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهي نستخرانا وآيات دليلنا يأك معلومات هو هي لكن يقينتي إيمانك ضعيفة مركز أكون نري لا بس نرح سلام نرح 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 جماعة بينتك لا تصوص صلاة نرح إلهي فلق إنك السلوم ونقص الرح جماعة دي بلد جيستي حبين كيبون الله سيحلي الصبح دي مركو كعي خمرات دي أي كب بعضي وأركي مسكين لقد الإعلام أيو وبو تليفون قاطو وحيون أيام ماشن إكاني إيش يقول وانحربه بوليس ما نقول يعني وضع كان هذه بوليس اللي بقول يعني وخلاص ولا قلت تقول مركزان اللي عندكم نقرأ لها واسكسعون بس كسعون مركيدا بالرجل نوش شيئا وحي نقول عليه نكا وضع كمركو صوق لي عالم بوها ولي بمساجد وضع كويا له إمام كهابي نقول عليه ما عندنا طريق وخمر كو عبيا فهمت معلوماتك هو شيء وقوني إيمانك هو قوني ويان وما ضمانت إيمانك هو سويا الله إيمانك أنا كرس وقنا ربها هاي مركز سلادرت بصحابة رسولكم إن إيمانك برتان وإيمانك وقبت باديان وحول بويك الدورتين والله وحول بويك الدورتين دان وساعدة قدانو مليوات يا مسوقة بيقولها لما إيا كما باكو جرنا ما أنت نحدث لما إيا كما دولة العباسية نكي متوكل الأورنجري أيا دد مسلمين وكقاتل دول كوجي بيروهوجي مرجع بدد مسلمين تو إنتيس صور راعين قبل ولا شيء ولا دلتون نفيس الأورنجري بيكون هذين ولالكا أدو كجعلي هاي أدو كمقلاية بيرها يجي تجارة ديدي حولها يجي بنجا قاتل نجا هذا اللي بيكون هذين مركز يكتري سأفعله إن شاء الله وان يلي دونا سداس والله اللي دونا بيكتري هل كي يكون لتاجم ببقر كطريقة صومر يبلغي مركز يكون هذا واقع مركز بقر كي اللي يري حرس كسيبا كويد ولا شابا مشى تاجن ولا شابا أنت تاجن وهلكن جوكتا مركز كوسول لحدو ولا شيء بويمي دي مركز يدخل كوسول أورين لما هل إريبي كتري وعي كتري لما مركز يكون كما markaasay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii markii horeba ninkan ka cabanayay kaga cabanayay
ayaa waxay ku yidhahdeen gabadhii waana kii kuu sheegnay kugu soo ashkatoogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariye miyaad nagala hadashay bay ku yidhaahdeen markaas ay ku tidhi waanigii la hadlay ma isaguna waa kii ii jawaabay markaasay ku yidhahdeen lima iyo kama unbaad istidhaahdeen maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yidhaahdeen markaasaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dulminaysaan ood waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku idhi markaasuu iigu jawaabay kamaa takuunuu yuwalla calaykum waxaad ku tidhaahdaa sidaad ininku aad tihiin ayay madaxdiinuna noqonayaa ka dhab uu yidhi waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tidhi ininku ilaahay u toobadkeena haddaad hagaagtaanna madaxdiinna hagaagi haddaad bacnaataanna madaxdiinna bacnaan hadduu camalku hagaago xaaladda adduunyadoo dhan baa hagaagi hadduu camalku naga xumaadana xaaladda adduunyadoo dhan baa xumaan acmaal baa ilaahay doonayaa camal halka maanta muslimiintu ay joogaan camalkoogaa dhigay haddaan soo noqonana ilaahay tabaaraka watacaala raxmadiisa waa waasic watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun baa ilaahay yidhi soo noqda baa ilaahayna leeyahay dhammaantiin saaad adduunkan iyo aakhiro aad u liibaantaan haddaan liibaan doonayna waa maxay waa inaan ilaahayna u soo noqono haddaan cidhiidhiga rabna inaan ka baxno oon faqriga ka baxno oon dulliga ka baxno oo qaxootinimada ka baxno oo gaalada muslimiintu ay gacmaha hoos haystaan haddaan rabaan inay ka baxaan waa in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay u soo noqda waa maxay macnaheegu kitaabka ilaahay u soo noqda sunnada nebigiina u soo noqda calayhi salaatu wasalaam wadannada gaalada beri annagoo joogno ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow 22 sanaan joogay buu Yurub Denmark man 22 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu daalac noo raacayba إلا وأمدهم قري لقصة بوقتها مركزان هذا قبل كلام تجني نين وحان هاللي مركز يسقون يجري دل كان مريكا كوحان كنا ولا هاي تضبيه صد صنو بل طبعا برينا الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كيجي درين كي آخر إير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبيه صد صنو ودن كجوجا بودي haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buuri waxa la ii sheegay buuri inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinayse culumay ducada igu daray buuri hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeya kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku duceysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku dan baa yidhi dayax gacmeedka u horreeya la diray buu yidhi waa kaftan 2 nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida Soomaaliya hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cidla Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo Allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam
bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra